بسم الله الرحمن الرحيم wareegta ka soo baxday duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa xilka qaadis loogu sameeyay gudoomiyaha degmada Shibis mudane Cabdiraxmaan Sayid Cali Xuseen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee number 6 soona baxay 12kii bisha labaad ee sanadkii 1980kii markuu arkay sharciga maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka ee nambarkiisu yahay 116 soona baxay 6 bisha 8aad 2013 markuu arkay sharciga shaqaalaha dawladda hoose ee xamar nambarkiisuna yahay 28 bis ee 22kii bishii labaad sanadkii 1976 soo baxay markuu arkay warqadda sumadeedu tahay maga gada shibis eber 27 ee 2020 ee soo baxday kana soo baxday xafiiska gudoomiyaha degmada Shibis kuna saabsaneed amar joojin dhismooyin guryaha taasoo ah warqadan uu soo saaray gudoomiyihii degmada Shibis markuu arkay sifaha sharci darada ah ee uu dadka deegaanka lacagaha ugu qaadayo markuu arkay qirashada gudoomiyaha degmada Shibis qaadista lacag aan sharciga waafaqsaneen kana hor qirtay gudoonka sare ee maamulka gobolka Banaadir asigoo la tashi la sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ku xigeenadiisa wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisa koowaad ee u qoran tahay laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo waxa xilka gudoomiyaha degmada Shibis laga qaaday mudane Cabdiraxmaan Sayid Cali Xuseen isla markaana loo diray waaxda dambi baarista ee CID-da qodobka labaad dhameystirka wixii dhiman xeerkan fulintiisa waxa uu xil ka saaran yahay waaxda shaqada iyo shaqaalaha iyo waaxda xiriirka degmooyinka ee gobolka Banaadir qodobka saddexaad xeerkani wuxuu dhaqangalayaa markuu uu saxiixo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyadoona gudoomiyaha uu xeerkan saxiixay ma sanadin